maxaa dhici lahaa haddii aadan nolosha ka baqaynin qalad samaynta? Muuqaalkan waxaan si qoto dheer ugu falanqayn doonaa waxa ay kalsoonidu tahay, waxa dila kalsoonida, sida loo dhiso kalsooni buuxda, iyo cilmi baaristu waxay ka dhahday mawduucan. Kalsoonidu ma aha in aadan waxba ka baqin, ee waa inaad ogaatid ood awood u yeelatid waxa ku cabsi geliya kadibna aad wajahid. Waxaan uga hadli doonaa muuqaalkeennan dhowr qodob. Su-aashan koowaad een ka jawaabayno waxaa weeye waa maxay kalsoonidu? Kalsoonidu waa maxay? Su-aasha ah inta aynan ka jawaabin waxaynu ogaanaynaa waxa ayna kalsoonidu ahayn. Kalsoonidu ma aha isla weyni iyo kibir iyo inaad u malayso inaad dadka wax dheer tahay, taasoo sababi karaysa in addoonku alla ka fogaado. Mar kasta oo sifada kibirku qofka ay gasho waa mar kastoo Ilaahay kasii fogaanayo. Marka kalsooni markaan leenahay waxaynu ula jeednaa qofku inuu garto awoodihiisa, waxa uu kari karo iyo waxa uuna kari karin, taasoo marka qof ka dhigaysa wixii uu kari karo inuu sameeyo ee uu kartida u leeyahay, halka waxaanu awood u lahayn ama uuna kari karin uu aqbalayo. Taasaa waxaa la yidhahdaa kalsooni. Marka su-aasha ah kalsoonidu waa maxay waxay noqonaysaa jawaabteeda ugu sahlani inuu qofku isagu isgarto. Psychology ahaan cilmigan kalsoonida waxaa loo yaqaanaa qofku inuu aamino awoodihiisa uu ku guulaysan karayo nolosha jaanibadeeda kala duwan. Dadku marka ay kalsooni leeyihiin waxay aad ugu fiican yihiin inay ogaadaan noloshooda waxyaabaha u sahlan ee ay qaban karayaan, kadibna ay waqti badan iyo dadaal ay geliyaan, kadibna ku guulaystaan. Maxaa kalsoonida qof dili karaya? Waxyaabaha kalsoonida qofka dili karaya walow ay aad u fara badan yihiin, haddana waxaynu ka soo qaadan doonaa dhowr shay oo kuwa ugu halista badana ama qofka ka dhigi karaya mid aan kalsooni lahayn, noloshan aan waxba ku guulaysan karayn. Qodobka koowaad oo ka mid ah qodobada ugu halista badan ee qofka kalsoonidiisa hoos u dhigi karaya ama ka dhigi karaya mid aan waxba qaban karin nolosha waa isbarbardhigga. Isbarbardhiggu si guudba wuxuu qayb ka qaataa qofka kalsoonidiisa iyo dhiiranaantiisa inuu hoos u dhigo. Horey waxaan usoo sheegnay in ay kalsoonidu tahay qofku inuu aamino awoodihiisa, ee uu garto waxa uu ku wanaagsan yahay iyo waxa uuna ku wanaagsanayn, ee uu horumariyo waxa uu ku wanaagsan yahay. Marka isbarbardhigani wuxuu keensanayaa qofku inuu qof kala fiiriyo noloshiisa, guushiisa, muuqaalkiisa iyo horumarkiisa ayaa isagu wuxuu ku qiimeynayaa inuu isaguna horumarkaas oo kale inuu gaadho ay ahayd. Markuu ogaado inuusan gaadhin ayaa waxaa imanaysa inuu qofkii is yaraysto ama uu qiimihiisa hoos u rido, taasoo ka dhigaysa qofkii kalsooni ahaan inuu qof aad u hooseeya uu noqdo. Waxyaabaha ugu weyn ee qaladaadka ah ee qofku markuu isbarbardhig sameeyo dhacay waxaa weeye in qofka noloshiisii iyo horumarkiisii iyo ahdaaftiisii uu gaarka ahaydi ay hoos u dhacayso ama uu ilaawayaba oo uu ku mashquulayo qof kale tiisa. Marka isbarbardhiggu waa shayga ugu halista badan ee qofka kalsoonidiisa dili karaya ama hoos u dhigi karaya. Shayga labaad ee dili karaya kalsoonida qofka waxaa weeye nafla hadalka taban. Sidaynu ognahayba badanaa waxaynu nahay waqtiga ugu badan dadka isla qaata, nafteenna ayaynu la qaadanaa wada sheekaysiga ugu badan. Wada sheekaysiga marka nafteenna aynu la yeelanno haddii uu noqdo mid taban ama mid aan wax wanaagii ku jirin, waxay mar kasta sababaysaa oo weliba si hoose oo aan ogaansho ku jirin ama baraarug ku jirin ay u sababaysaa dhanka kalsoonideena. Haddii mar kasta aad isula hadasho si taban iyo inaadan ahayn qof waxba ku wanaagsan nolosha, waxaad dhab ahaan noqon doontaa qofkaas aad isu sheegtay inaad tahay. Cilmi baadhis ay samaysay Dr. Ethan Kross oo ay ku soo bandhigtay University of Michigan ayaa waxay ku muujisay dadka leh nafla hadalka tabani in ay aad ugu nugul yihiin kalsooni darro nafeed, walwal iyo go'aan qaadasho aad u liidata. Taasoo macnaheedu ka dhigan qofku mar kasta oo naftiisa qaabka ula hadlaya ay qaab aan wanaagsanayn ay tahay ama qaab taban ay tahay, waxaa hoos u dhacaya kalsoonidiisa. Sidoo kale waxaa aad u badanaya walwalkiisa nafeed iyo walwalka uu ka qabo, maadaama uu qofkani isku sheegayo mar kasta inuusan ahayn qof wanaagsan ama qof wax ku fiican, waxaa badanaya in uu walwalkaasi kor u kaco iyo ugu dambayn in uu qofku go'aankiisa uu aad u liito, go'aan qaadashada inuu aad ugu liito qofku. 3 waxyaabaha ka midka ah waxa kalsoonida qofka dila ama hoos u dhiga waxaa ka mid ah ka baqitaanka qaladka. Waxaynu badanka aad uga baqnaa nolosha waxyaabo fara badan oo isku day lahayn inaynu qalad samaynayno darteed baan uga baaqsanaa, taasoo marka ka dhigaysa in kalsoonideeni ay hoos u dhacdo oo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad qabatid wax kuu cusub markuu yahay qalad inaad samaysay macnaheedu kama dhigno caddayn u aha inaad ku guuldareysatay, ee wax inaad qalad samaynaysid waxay caddayn u tahay
in aad horumar samaynaysid oo aad wax isku dayaysid waxaadan hore u aqooninna aad samaynaysid taasoo marka uu halkii uu lahaa ninkii Albert Einstein la odhan jiray qofka aan weligii waxba isku daynin weligii khibrad cusub inuu raadsado muna go'aansan marka markasta waxaad ogaataa inaad wax qaladahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaad wax isku dayaysid oo qaabka aad qaladka u aragto inaad wax ka bedesho waxay kor u qaadaysaa kalsoonidaada waxaynu marka soo hadalnay saddex shay ugu muhiimsan ee qofka kalsoonidiisa dili karaya oo ta koowaad ay ahayd inuu qofku isbarbardhig sameeyo oo noloshiisa dad kale u barbardhigo laba inuu qofku naftiisa qaab taban ula hadlo oo la hadal taban uu qofku markasta iskula sheekaysto iyo ugu dambeyn inuu qofku ka baqo qaladaadka saddexdaas shay waa saddex shay ugu waaweyn ama ugu muhiimsan ama ugu halista badan ee qof ka dhigi karaya mid kalsoonidiisu ay hooseyso marka saddexdaas shay markasta aad ku baraarugto in sidaad u samayso iyo marka aad samayso waxay markasta kaa dhigi doontaa qof kalsoonidiisa ay kor u kacdo ama ka warhaya maadaama ka soo hadalnay waxyaabaha kalsoonida dila waxaynu qaybtan u hadli doonaa waxyaabaha kalsoonida dhisa ama qof ka dhigi karaya mid kalsooni leh oo isku kalsoon kow waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofku kalsooni uu ku dhisi karayo ama ku kobcin karayo waxa weeye ficilo yaryar oo maalin kasta uu sameeyo joogteeyo ficilo yaryar oo samayso oo aad joogteysay mar kasta waxay kuu hogaaminayaan inaad noqoto qof kalsooni ahaan aad u sareeya taasoo macnaheedu ka dhigan waxaad samaynaysaa maskaxdaadu maalinta ka dambaysa waxay u qaadanaysaa dhanka wanaaga adiguna maalinta ka dambaysa waxaad noqonaysaa qof ku wanaagsan waxaas uu samaynayo cilmi baadhis ay samaysay Harvard Business School ayaa waxay sheegtay guulaha yaryar ee joogtadii inay si weyn u kordhiyaan uguna qayb qaataan kobcinta kalsoonida iyo dhiiranaanta qofka marka tusaale haddii aad u baahan tahay inaad noqoto qof qoraa ah waxaa lagaga rabaa inaad maalin kasta joogtayso 1 daqiiqo 5 daqiiqo aad wax qoraal samaynaysid joogtayntaas waxyaabaha yaryar ee samaynaysid 1 daqiiqo iyo 5 daqiiqo inaad dareemin baa suurtagal laakiinse waxay u codayn doontaa oo ay ka qayb qaadan doontaa in ay ka dhigto qofka qoraaga ee u baahan tahay oo ah hadafka weyn ee leedahay shayga labaad ee ka qayb qaadan karaya kalsoonida qofka inuu si wanaagsan ugu dhiso waxaa kamid ah bedelida nafla hadalka hore waxaan soo sheegnay nafla hadalka tabani inuu yahay wax dilaya kalsoonida qofka markasta oo bedesho qaabka aad ula hadashid naftaada qaabka taban aad ula hadashid qaabka aan wanaagsaneyn aad ula hadashid ee ku bedesho qaab wanaagsan ama qaab positive ah waa markasta oo ay kalsoonidaadu kor u kacayso marka mar fara badan halka aad ka adeegsan lahayd weeraha ay kamid ka yihiin ma awoodi iyo waxaas ma samayn karayo ani la iguma talagelin waa inaad ku bedeshaa waxyaabahan inaad baranaysid inaad ku wanaagsanaan doontid inaad u baahan tahay inaad waqti yar geliso si aad u samaysid saddex waxyaabaha ka qayb qaadan karaya qofka kalsooni ahaan in uu dhismo ama uu kobco waxaa kamid ah qofku inuu jirkiisa la socdo markastaba jirkaagu wuxuu qayb weyn ka qaataa qaabka kalsooni aad u muuqato dadku marka ay ku arkayaan marka jirkaagu siduu yahay waxay markastaba dadka u sheegtaa oo u gudbisaa fariin ah kalsooni ahaan heerka aad taagan tahay marka waxaad markasta ku dadaashaa in aad feejignaatid oo maskaxdaadu ay soo jeedo jirkaaguna uu toosnaado marka aad hadal jeedinaysid afar oo ah shayga ugu muhiimsan marka ay noqoto kalsooni dhisidda ama kalsooni kobcinta ayaa wuxuu yahay qofku inuu aqoon yeesho macnaha aqoon inaad raadsisid oo aad wax baratid markasta oo aad wax barato oo qofku qof aqoon la uu noqdo waxay macna ahaan ka dhigan tahay qofkaasi qof aad u kalsoon inuu yahay sababtu waxay tahay maskaxdaada waxay helaysaa cadayn waxyaabaha aad sheegaysaa markasta oo aad helaysid waxyaabaha aad ku kabi kartid waxa aad sheegayso oo cilmi ahaan aad u haysid waxay kor u qaadaysaa awooddaada kalsooniyeed ugu dambeyntii kalsoonidu ma aha wax lagu dhasho sidoo kale ma aha wax la sugo oo imanaya waxaad u baahan tahay inaad kobciso oo kordhiso oo ku dadaasho maalinta ka dambaysa si aad u noqotid qof kalsooni leh xasuusnow marka midan qaladku waa cashir aad qaadanaysid cabsiduna waa albaabkii aad u baahnayd inaad ka gasho kalsooni dhisidda ficilka aad samaynaysidna waa furihii albaabkaas marka si aad albaabka furihiisa u hesho waa inaad qaladaad fara badan samaysaa taas waa inaad maskaxda ku hayso markasta oo qaabka aad qaladka u arkaysid ay sidaa noqoto ugu dambeyntii su'aashan baad ka jawaabi doontaa kalsoonidaadu heerkay joogtaa ma isleedahay laakiinse kalsooni darro ayaad dareemaysaa